Asalaamu calaykum walaalahayga qaaliga ee kusoo dhawaada channelkayga with another video. Haddii ay igu cusub tahay walaal qaali, magacaygu waa Taliso, channelka iga daawanaysana waa Taliso Cabdullaahi. Soo dhawaaw. Maantana waxaan ila sheegareynayaa afur aad u macaan badan, aadna u fudud, qaab fudud aad u samaysan kartid, iyo cabitaan asigana meeshaan aan ka marnayn aad arkaysaan. maasha Allah tabaarakallah, smoothie aadna u macaan, ka faa'iideysi wacan ayaan leeyahay. Halkaan hadda sidaad arkaysaan waxaan ku haystaa baaquligan waxaan ku soo shubayaa haaf bakeeri caano intaa kadib waxaan ku soo darsanayaa oon halkaan ku haystaa khamiir ama isti sidaa u taqaano. baakada yar waaye ayaan ku soo darayaa, waan ku soo wada darayaa. aad ma u weyna baakadan, wax yar ayaa ku jiro, khamiirka ku jiro aad ma u weyn ma badno. soo marka waxaan ku soo darsanayaa wax yar oo bata aan soo dhalaaliyay. intaa kadib waxaan ku soo darsanayaa oon halkaan ku haystaa cusbo wax yar waxaan ku soo darayaa qaando oo sokor ayaan ku darsanayaa. intaa kadib waxaan ku soo darsanayaa oo halkaan ku haystaa hal xabo ukun ukunta qasab ma ahan inaad ku darsato, haddaadan jeclayn waa iska dayn kartaa, ukun la'aan waa samaysan kartaa. intaa kadib waxaan ku soo darsanayaa haaf bakeeri oo biyo bakeeriga uu soo dhaweeyaa laakiin zaid ma u buuxo. waxaan ku soo darsanayaa burka ayaan ku darayaa hadda, kadibna si fiican ayaan isku qasayaa intaas. soo marka waxaan rabaa waxyaabii dhan aan isku dardarna iyo bur yar ayaan ku daray inay si fiican isku dhex galiyo ugu horeyntii. maasha Allah tabaarakallah. sidaan markaan isku qaso kadib waxaan ku soo darsanayaa haddana waa kana markaan si fiican isku qaso hadda waxaan ku soo darsanayaa bur kale, burkaan yacni aan ku adkeyn lahay wuu jilicsan yahay. marka hadda waa kana kadibna si fiican ayaan u soo rifaaqayaa. hadda halkaan sidaad arkaysaan weelkii aan soo mariyay wax yar oo bata ama saliid soo maray, kadibna burkii aan si fiican u soo rifaaqa ayaan ku soo celiyay. hadda halkaan waxaan ku haystaa chicken aan si yariis ah u soo jarjaray. waxaan ku soo darsaday xawaajiyaasha ayaan ku soo darsanayaa, paprika ayaan ku soo darayaa, waxaan ku soo darayaa hoo kale filfisha shiidan, filfisha cadaanka waxaan ku soo darsanayaa garam masala, yogurt, adigu xawaajiyaasha waxyaabaha dhan aad haysato ayaa ku darsan kartaa adiga ma xawaajiyaasha nooca aad jeceshahay. intaa kadib waxaan ku soo daray yogurt oo 2 qaando kadibna si fiican ayaan isku walaaqayaa. kadibna waan isku soo walaaqayaa si fiican. intaa kadib waxaan sameynaa markaa sidaan isku walaaqo taawo ayaan dabka soo saaray. waxaan ku soo shubaa wax yar oo saliid oo aad u badnayn ayaan ku soo shubayaa. dan wax yar marka ay soo kululaato kadib waxaan ku soo darsanayaa chickenki aan waxyaabii dhan aan isku dardarnay. chickenka marka xawaajiyaasha saan u marisid muddo cabaar ayaa iska dhigaysaa, haddaa waqti aad hayso at least 1 hour inaad dhigtid ayaa fiican. markaas oo si fiican waxyaabaha dhan aad ku dardartay si fiican ay kugu dhex galaa, ama habeenkii oo dhan inaad iska dhigto. laakiin haddii aad degdeg qabto qasab ma ahan, hore ayaa ka dubi kartaa. haddana waa kana waxaan ku soo darsanayaa chickenka wax yar markii uu karsamay, tomato paste ama yaanyo shiishid ayaan ku soo daray. waxaan ku soo darsanayaa cusbo. intaa kadib waxaan ku soo darsanayaa oo halkaan ku haystaa barbarooni iyo tuun, kabsar caleen aan isku soo shiiday ayaan ku soo darayaa. intaa kadib waxaan ku soo darsanayaa basal iyo basbaas oo soo jarjaray. basbaaska midka waaweynka waaye ma kululo. basal baar ayaan soo jarjaray ayaan ku darayaa. kadibna intaas ayaan si fiican isku walaaqayaa, waqti ayaan siinayaa, si fiican ayaan isku dhex gelinayaa. maasha Allah tabaarakallah. afaaran haddii aad samaysato ya sambuus waa ka maarmaysaa. maasha Allah tabaarakallah. adinkana soo tijaabiya walaalahayga qaaliga sida uu kugu soo baxana ila soo wadaaga. waa kana chickenka diyaar inoo waaye. halkaan waxaan ku haysanaa burki oo noo soo qamiiray. maasha Allah tabaarakallah. kadibna waxaan sameynayaa burka waxaan ka bixinayaa hawada ayaan ka saarayaa, kadibna waan isku celinayaa. halkaan ayaan soo saarayaa kadibna waan soo jarjarayaa. haddana waxaan sameynayaa waan soo jarjarayaa. marka waa kana walaalahayga qaaliga soo marka kiskis yar yar ayaan u soo jarjarayaa iyo aad iyo kaaga buuran wax yar inaad u samaysato. haddii aad rabtidna qafiif zaid ka dhigo, haddii laakiin aad rabtid inaad ku buuraado waa weyn ayaa ka dhiganaysaa. soo marka hadda waa kana ani qaar waaweyn qaar yar ayaan isku dhex darayaa.
adinkana waa kana sidaan aad arkaysaan saan ayaan u fidinayaa hadda xabadii koobaheed waaye ayaan tusaaya maasha Allah tabaarakallah hadda saas ayaan u fidinaa aayar marka si fiican marka uu soo fidiyo kadib hadda waa kana waan soo fidiyay waxayaan halkaan ku haystaan soo qaata chickenka aan soo diyaarsanay kadibna waxayaan sameynaa geeskaas ayaan uga soo shubaaya dhexda ayaan uga shubaaya rootigan sida duubaysid aad ay u fududahay qof walba ayaa sameyn karo wax adag ma ahan marka kadib waxayaan soo qaatay jiis ayaan halkaa ku haystaa oo soo xoqay farmaajo waxaan wax yar ayaan ku soo shubay jiiskana qasab ma hadii aad rabbi waa iska deyn kartaa kadib sidaas ayaan sameynaa labada dhinac ayaan ka soo qabanayaa sidaas ayaan u duubayaa arkaysan ma sida spring roll-ka ayaa u duubaysa maasha Allah tabaarakallah aad ayuu u fudud yahay rootigana aadna u macaan badan yahay marka walaalayga qaaliga waa arkaysan sidaas ayaan u soo duubayaa waxaan soo saaray saxanka aan furnada la gali lahay kullina sidaas ayaan ku soo wadayaa ilaa aan ka soo dhameeyo marka waa ka saa arkaysan ma badan kala ayaan tusaaya isla sidii ayaan sameynayaa kadib waxaan ku soo shubay chickenkii waa arkaysan kadib waxaan soo qaatay wax yar jiis ayaan ku soo shubanayaa waan isku laabayaa wixii dhan waa u dhameystiran yihiin rootigan maasha Allah waa kana sidaas ayaan u duubayaa check waa kaas walaalayga qaaliga sidaas ayaana ku soo dhameynayaa soo marka waa kaas sidaas ayaan u duubayaa xabadii labaadna sidaas ayaan ku soo dhameeyay haddana waxa ayaan sameeyay weelkii aan furnada la gali lahay ayaan kulli soo saaray halkaa waxa ayaa igu jiro kunta qaybta yeelowga iyo waxa ayaan ku soo daray wax yar caano kadibna sidaas ayaan dusha uga soo marinaya maasha Allah tabaarakallah soo marka waa kaas aayar ayaan u soo marinaya kulli waxay ka saacidaysaa korka ayuu wuxuu kaaga naqanaa jileec kala dahabi kala arag ayuu ku noqonaya markii asaas ugu mariso marka waa kaas walaalayga qaaliga sidaas ayaan ku soo dhameeyay marinta rootiga sidaas ayaan u soo mariyay kulli haddana waxayaan sameynayaa ayaan gelinayaa kor iyo hoos inta u shido kadibna inta foornada igu jiro waxayaan ku haystaa cabitaan ayaan sii sameysanayaa waxayaan ku haystaa inta saytuun aan soo jajaray oo sidaas u soo jajaray qobkiisa ku soo jajaray ayaan ku haystaa kadibna waan tusi doonaa waxyaabihi kale oon ku dari doono ugu horeyntii hadda waxayaan sameynayaa saytuunkii aan soo jajaray ayaan ku shubayaa makiinada cabitaanka waan soo shiidi rabaa marka waxayaan sameynayaa kulli halkaan ayaan ku soo shubayaa kadibna waxayaan ku soo darsanayaa biyo oo qabow ayaan ku soo darsanayaa oo fridge aan ka soo bixiyay marka waa kaas biyahaas ayaan ku soo darsaday kadibna waan soo shiidayaa biyo badan kuma daraayo hadda waa kaas saa arkaysan kadibna waan soo shiidayaa hadda waa kana waan soo shiiday waxayaan sameynayaa hadda waan miirayaa waxayaan soo qaatay weelkan halkaan ayaan rabaa inaan ku soo miiro waxayaan sameynayaa hadda halkaan ayaan ku soo shubayaa waa aragteen aad ayuu rasiin u yahay haddana waxayaan soo qaadanayaa biyaha oo qabowga ayaan ku soo shubayaa hal bakeeri ayaan ku soo darsanayaa kadibna si fiican ayaan rabaa inaan u miiro oo qashinka dhan aan uga saaro marka uu adag yahay cabitaankana arkaysaan markaas saytuunka wax yar marka aad shiido cabitaan badan ayaa kaaga soo baxayo hadii aad rabtid cabitaan jilicsan aad rabtid marka waa kaas cabitaanka aan sameynaa ani aad biyana ma u ahan aadna ma u culso maasha Allah tabaarakallah hadda sidaas ayaan sameynaa ugu horeyntii kadibna waa inay tusi doonaa waxyaabihi kale oo aan sameyn doono iyo aan ku dari doono hadda waa kana waan soo miirayaa hadda waa kana asxaabteeda qaaliga markii aan soo miira kadib si fiican ayaan isku qasayaa soo maadaama biyo aan gadaal uga daray waxaan rabaa inuu si fiican cabitaanka aan isku dhex geliyo kadibna waxayaan sameynaa waxayaan ku celinayaa makiinada cabitaanka ayaan ku celinayaa soo mar kale ayaan soo shiidayaa intaana soo shiidin ka hor waxayaan tusaa waxyaabaha aan ku darsanayo halkan waxa ayaa igu jira wax yar sokor bakeeri half ayaa igu jira sokor haday sokor kuma aanan darin cabitaanka hadda ayaan ku darayaa sokorta waxaan ku haystaa oo kale hadda inta caano ayaan ku haystaa caano booro waaye caanaha aan isticmaalayo milky powder waaye soo marka milky powdergaas ayaan ku soo darsanaa qiyaastii 4 qaando ayaan ku soo darayaa kadibna waxayaan sameynaa waa isku soo shiidayaa mar kale si fiican marka isku soo shiiday kadib sidaan quruxda badan ayuu ku soo baxay cabitaankeeni aadna waa u qabow yahay
biyo qabow ayaan ku qasay kusoo shiiday haddana waxaan gadaal uga darsan doonaa baraf laakiin hadda halkan waxaan ku haystaa bakeeriyaashan ayaan kusoo shubeysa arkaysaan maasha Allah tabarakallah sida hore idinkugu sheegane cabitaan badan ayuu saytuunka hadda wax yar ayaa shiidid cabitaan badan ayuu ku noqonayaa marka waa kaas family-ga dhan ayaa wada cabi karo maasha Allah tabarakallah ka faa'iideysi hadda waa kana waxaan kusoo shubanaa qaybta kala garaafadan ayaan kusoo shubanayaa maasha Allah tabarakallah cabitaankan aad ayuu macaan baday adinkana soo tijaabiye waa kana cabitaankana sidaan ayaan uga baxna sidaan ayuu diyaar inoogu yahay afayna ayaan dusha uga soo darsanaynaa sidaan ayuuna diyaar hadda dhinaca kale rootiga ayaa diyaar inuu soo noqday maasha Allah tabarakallah sidaa quruxda badan ayuuna ku soo baxay fornada markii uu ka soo baxay dhexdiisana maasha Allah tabarakallah rooti jilicsan aad u macaan badan maasha Allah tabarakallah uga maarmaysid sambuus waa kaas ay walaalahayga qaaliga ka faa'iideysi wacan ayaan leeyahay haddii ay ugu cusubtahay waxaan kaa codsanaa subscribe ina ii saarto channelkayga videoga haddii uu maanta ku cajaab geliya like comment iyo share lana sii share garay walaalahaga kale intaan video kale qurux badan ku kulmi doono waxaan rajeynayaa farxad iyo caafimaad dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh